بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال تلفزيون كدلسن ayaad nagala socotaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno Maxamed Cabdi Raage oo ah xeelleere arrimaha nabadda geeska Afrika ee wax badan falanqeeya waxaan ka hadli doonaa oo waraysigan aan ku eegi doonaa wax badan oo ku saabsan xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga iyadoo oo jamhuuriyadda Turkiguna asaaskeeda loo dabaaldegay asaaskeeda 96 sano kadib sharaf bayno tahay inaan kula kulano ku soo dhawo Dalsan TV bal sidoo ku bilowday xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga وما سنتي هرتين تانا نوجد بين جواب تسوى هذا وحن أدو شعلان الله هرتين بقاديو أساسك جمهورية دبالدقة أساسك جمهورية تركيا شلي لو دبالدقة يحرر وناقة ولي كده حيو سوماليا إيو تركيا حدان dad badan baa isweydiiya sidee ku bilaabatay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya miskay maadeen cid baa keentay ma xukuumadii markaa jirtaa keentay wax badan lagama oga in kastoo waqti ka soo wareegay hadda dadka inta badan Turki caawimaad iyo gargaar caalami iyo maaragtay xiriir caalami u fidiyay Soomaaliya bay dadku arkaan marka حربنا وحير بياميو إلهي با إيجا ديجي سبب اسكو حركة تركيا جي سوماليا يو سومالي دبا انت دبدن حلي باهي بأن اي كجرت ودن كان او أباركوها بسدين لبدي كون يو تدبدي لبدي كون يكوي تبانكي بيشي تدباد هدان أودعو دلوع دا يسيدا يكون باللابته waxaan ka ahaa arday jaamacad Mareykanka ku taalan arday ka ahaa marka waxaan ku qasbanayn inaan qayb ka mid ah waxbarashadeena Turkiga kaga soo qaadano taariikhda Turkiga ku saabsanayd iyo dhaqanka tiibaan u tagay Turkiga nin la yiraahdo Cabdulwahab Madoobe oo qaraabanahay baa igu xiray family iyo isagu qaraabaha ay saaxiibahay isagana sagaashamiyadii jaamacad ka bartay iyo ka dhameeyay kaga baxay Turkiga niman ay jaamacad wada dhigan jireen oo ay friend tahay ayuu igu xiray nimankii baa soo dhaweeyay xiriir baa noo bilowday waxaan isku afgaranay inaan xagga ganacsiga ka caawiyo East Africa marka nimankii waxay ugu qasbtay markaan waxbarashadii dhameystay inaan dib ugu soo laabto Turkiga waa ku soo laabtay waxaan ka wada shaqeynay qaabkan oga caawin lahaa sidii uga howlgali lahaayeen xagga bicmishtarka uga howlgali lahaayeen wadamada East Africa iyo Horn of Africa waxaa dhacday marka warbixin Hiiraan online lagu soo saaray ayaan akhriyay oo ku saabsaneed xaalad bani'aadanimo oo ka jirtay xariyaha qaxootiga Dadaab iyo Ifo iyo Dhagaxley waxaa jirtay abaar ku habsatay Soomaaliya iyo qaybo badan oo Northeastana abaartaas waxay kaliftay in dad badan u qaxaan xariyaha qaxootiga markay qaxeen dadkiina xukuumadii Kenya ee markaa jirtay ayaa isku qabsatay in xaraq dheeraad laga siiyo Ifo iyo in IDP laga siiyo Soomaaliya dhexdeeda meel la yiraahdo xarxaarka Raila Odinga oo ninka mucaaradka caanka ku ah ee wadan Kenya oo markaa prime minister ahaa wuxuu soo go'aamiyay ama soo jeediyay in la siiyo xaro dheeraad ah Ifo laga siiyo madaxweynaha markaa jiray oo Mwai Kibaki ahna wuxuu soo go'aamiyay in IDP laga siiyo meel la yiraahdo xarxaarka oo Dobley ku dhow magaalada Dobley u dhow arintii waxay keentay dad badan oo soo qaxay qaxootiga imaaday ay macluul ugu dhintaan meesha saad ogtahay hay'adaha ka howlgalo xariyaha qaxootiga ma diiwaangeliyaan qof aanan ogolaasho wadankii laga haysanin wadanka markaa qaxootigu qofka ku noqonayo diiwaangelinta la'aanteed waxay keentay in dadka macaawin la'aan noqdaan macluul meesha ugu dhintaan iyagoo soo dhibaatooday soo lugeeyay soo rafaaday abaar ku soo habsatay xoolihii ka soo dhamaadeen qaar beerahoodii ka soo cararay ay meeshii imaadaan meeshina
wax mucaamilo ka waayaan marka tii ayada ahayd ayaa waxaa qoraal ka sameeyey ninka hadda UN ta haysto la yiraahdo Antonio Guterres oo UNHCR markaa u xil saarnaa UN ta qaybteeda iyo gabadhii fanaanada ahayd ee Saada Cali Warsame iyo gabadhii u dambeysay hadda lagu dilay Allah u naxariistay Ismaaciil lagu dilay Hodan Ale ayaa waxay tageen xariiqa qaxootiga warbixin bay ka soo bixiyeen warbixinta iyadaad baa waxa lagu daabacay Hiiraan online anigu Hiiraan baan ka akhriyay anigu joogo Turkiga oo nimankii arintooda ay noo socoto markaan warbixintii akhriyay ayaa waxaan anoo xaafadaha Istanbul kamida dhaxmarayo ayaa waxaan arkay hay'ad deyrada IHH calaamadeeda tabela meel ku dhigsan IHH waa hay'adii gargaarka caalamiga inta badan u fidiso wadamada muslimka iyo meelo badan oo dhibaato ka jiraan marka arintii baan xaqiiqsaday sheekadii aan akhriyay iyo iyagii baan isku keenay xafiiskoodii baan tagay waxaan dalbaday qofka u xil saaran arrimaha Afrika iyo bariga geeska Afrika nin la yiraahdo Muraad u yar baa yimid ninkii baa arintii u soo bandhigay wuxuu yiri waxaan war ka hayno ma jirto arintaasi annagu marmar qaar baan waxaan masaajidii wax ka dhidhisnaa Soomaaliya oo hay'adaha wax u isticmaalnaa laakiin xiriir toos ah lama lihin warka aad sheegaysana ma hayno bal warbixin ii soo qor ku saabsan arrinkaasi arintii baan u gudbiyay qoraal baan u sameeyay 2 page warbixintii aan ka akhriyay Hiiraan online iyo gabdhihii iyo Antonio Guterres boqoshadii ay xariiqa qaxootiga ku tageen tii ayada ahayd baan u gudbiyay reerkii xiriirka naga dhaxeeyeen u joogay marka iyada ayaan u tagay maalinkii ka dambe arintii baan u soo bandhigay waxaan ku yiraahdaa noocasan ayaa ka jirta oo xaalad bani aadanimo iyo abaar ku habsatay Soomaaliya baa jirta waxaanan u soo bandhigay niman la yiraahdo IHH wax ma ka taqaanaan markaas waxay yiraahdeen maaye IHH gabar adeerkan uu dhalay baa madax ka ah hay'adda lafteeda gabadhii bay waceen anagoo sidaa sheekada u hayno meesha Ilaahay wax ka wado gabadhii ayada ahayd waxay la hadashay ninkii aan warbixinta u gudbiyay oo markaa aan magaciisa u dhiibay nimankan anigu wax aan ka ogaa ma lahayn inay xiriir leeyihiin waa iska weydiiyay baayada weyn bay ahayd waxaan aad u dhibsanayay dadka macaluusha laga soo warramay xariiqa qaxootiga inkastoo in badan baan waxaan aad ugu xil dheerahay arrimaha gargaarka bini'aadanimada iyo nabadgelyada tii bay ugu kaliftay inaan danqado marka iyo Soomaalinimadii marka waxay iga ahayd iska weydii marka nasiib wanaag waxay noqotay in xiriir uu meesha ka dhaxeeyo maamulka IHH iyo reerkii aan danta ka lahaa tii ayada ahayd waxay kaliftay gabadhii inay ninkii amar ku siiso in la baxo oo la raaco assessmentna lagu soo sameeyo macnaha la soo qiimeeyo xaaladda bini'aadanimo ee ka hadlay marka team baa la soo raaciyay 5 qof oo uu ninkii madax ka yahay ugu horeeyay aan la kulmay oo la yiraahdo Muraad u yar teamkii isaga ahaa xariiqa qaxootiga markaan nimid waxaan u imaanay xaalad aad u ba'an waxaad ku hormarteen dhadhaban ku hormaray xariiqa qaxootiga Kenya ku yaalan ku hormaray abaartuna markaa isku sibay u saameysay dadka North Eastern degan iyo Soomaalidaba inkastoo ay koonfurta u badnaayeen dadkii markaa Soomaalida koonfurta u badnaayeen dadkii markaa ku soo qaxay xariiqa qaxootiga arintii iyada ahayd waxaan kala kulanay meeshii in dad aad u dhibaataysan dad meesha ku dhimanayo ku dhamaanayo xaruur waayeel dumar qaar soo lugeeyay qaar ka soo tagay ehelladooda oo meeyda dhaxda uga soo tagay gaajo darteed macaluul dartii marka arinta iyada ahayd waxa la socday media baa la socotay teamka isaga 5 qof bay ka koobnaayeen TV caan oo Turkiga laga yaqaan oo la yiraahdo TV Net ayaa socday nin hadda ka ah hogaamiye ka ah Anadolu News Agency ayaa markaa hogaaminayay teamka newska la socday TV-ga waxay toos u tabiyeen arintii ee la kulmay arintii bay toos u tabiyeen arintii waxay noqotay arin naxdin leh Turkiga ku noqotay gargaar ilaa 6 bilood soconayay oo baaxad weyn ayaa meesha iyada ka bilowday teamkii isaga ahaa baan soo diray marka xamar soo diray raac bay dhaheen anigu xamar marka iyada hawlihii aan ku mashquulsanaa baa aad u tiro badnaa
waxay dhaheen nin baan contact la leenahay la yidhaahdo Shucayb oo hay'ad la yidhaahdo Zamzam Foundation madax ka ahaa markaa ilaa hadda aan malaynayo inuu ka yahay ninkii bay la soo xiriireen isagii baa halka ku sugay isagii baa qaabilay anigu tigid baan soo jaray halkanaan yaan u soo sagootiyey xamar xaalad la mid ah ay kala kulmeen meel kasta oo ay tagaan waxay la kulmeen dad aad macaluul ugu dhammaaday dad soo qaxay dad rafaaday dad meesha ku dhammaanayo wixiina wuxuu noqday wax miidiyaha la socdo uu toos u tabinayo oo uu u gudbinayo warkii turkiga toos looga daawanayo tii ayada ahayd ayaa kaliftay in maaragtay uu madaxweynihii prime minister markaa oo hadda madaxweyne ka ah waddanka Erdogan oo xamar ka soo dego iyadoon xusuusanahay in xiriir caalami Soomaaliya iyo adduunka intiisa kale uu aad u yaraa wixii ka dambeeyay 94 waayahay halkaas markay hawshu maraysay intuus Erdogan uusan Soomaaliya imaan adigu doorkaaga waxa ku dambeeyay marka anigu door waxaan ku lahaa dee qaylidaankii tiimkii aan soo kaxeeyey ee xariiqa qaxootiga yimid ee ka bilaabay gargaar mucaawinad haddana u soo gudbay xamar sidii si la mid ah uga warbixiyay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta marka iyada so waxaan isleeyahay waxaa tahay qaylidaan u qayli tagay ummadda Soomaalida inkastoo aan mudnaanta siinayo labadii gabdhood ee dhintay Allah u naxariistay ee warbixinta xariiqa qaxootiga ka soo tabiyay ee la socday ninkii ahaa markaa Antonio Guterres oo xil saarnaa arrimaha UNHCR markaa u xil saarnaa so doorkayga waxaan isleeyahay waxaad ahayd nin shakhsi qaylidaan u sameeyay ummadii tabaaleysneed markaa iyada oo gaajadii macaluulka ee abaarta ku habsatay waayahay xiriirka hadda Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya waa xiriir aad u weyn muxuu salka ku hayaa oo la dhihi karaa Soomaaliya iyo Turkiga xiriirka hadda ka dhaxeeya waxa salka ku hayaa wallahi Soomaaliya iyo Turkiga hadda xiriir istiraatiijiyad ba ka dhaxeeya saad ogtahay Soomaaliya waxay ku taallaa qayb muhiim ah muhiim xagga بيع مشترك أدونك يعني international trade ka waad ogtahay wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimayo inay ku kaliftay caalamka dhan inuu ku soo xaadiro Soomaaliya iyo qaybo kamid ah Djibouti muhiimadda ay leedahay istiraatiiji ahaan waa mid caalami ah ma aha mid dawlad ku kooban ama Turkiga ku kooban laakiin waxaan leeyahay khaasatan Turkiga waxay u iftiimisay muhiimadda ay Soomaaliya leedahay iyo caalamku u iftiimisay markii 94kii uu coalitionka caalamka ka baxay international community ay ka baxeen Soomaaliya oo xilliga dagaalada badan ay ka jireen wadanka waa gartay diiwaanka taariikhda waxa ku jirta in Soomaaliya xilligii Said Maxamed Abdulla Xasan halgankiisa u socday in dawladda Cismaaniyiintu ay taageero siisay sayidka qarniyaal kadibna hadda waataan u jeedna in Turkigu mar kale taageero ballaaran Soomaaliya u siinayo marka maxaa ujeeda ah oo dawladda Turkigu ay Soomaaliya ka leedahay aragti ahaan iyo ogaan ahaanba dabcan waxaan isleeyahay in xiriir caalami ah oo kii Cismaaniyiinta oo kale inay soo celiyaan waa horta meesha ku jirtaa waxaad arkaysaa meelo badan oo ay taariikh ku lahayn inay dib u tageen ay u cusboonaysiinayaan taariikhdoodii laakiin geopolitics-ka hadda adduunka ka jiro ayaa Soomaaliya muhiimad weyn sii siinaya maadaama wadan burbure ay ahayd wadan argagixisay iyo nabadgelyo darro fara badan ay soo wajahday hadda ay dadka inta badan international community-guna focus u tahay waxaan isleeyahay muhiimad xagga bulshada xagga mushtarka xagga dhaqaale intaba way u leedahay Turkiga dawlado badan baa Soomaaliya sheegay inay taageeraan Turkigu muxuu kaga duwan yahay dawladaas Turkiga wuxuu kaga duwan yahay hormood buu ahaa dawladaha badan buu hormood u ahaa ma jirin dawlad toos u caawisa Soomaaliya oo wadanka ku sugan ma jirin inta ka horeysay imaashii Turkiga waxa laga hagayay wadamada dariska sida Kenya laakiin Turkiga taa wuu bedelay waxay noqotay inuu cid walba ay timaado oo hay'adkii dawladnimo halka in yar loo dhiso oo hadda maaragtay ay nin walba safaaradii dawlad kasta safaarad ay ku sameeysto halkan
ka howlgasho halka kan ee Soomaaliya gudaheeda ay ka howlgasho. waqti intee leeg baad isleedahay marka uu sii socon karaa taageerada iyo caawinaadda Turkiga Soomaaliya uu ka geysanayo? wallahi waxaan isleeyahay waa waqti dheer buu sii socon doonaa maadaama aan arkahayo maaragtay investment fara badan Turkiga inuu halkan ku sameeyay caawinaadda uu siinayo Soomaalida iyo Soomaaliya dawlad ahaanba waxaa sii dheer iyaga dhaqaale ahaan doorka ay ka qaadanayaan. waxaad garan kartaa airportka company Turkiya baa maamulaya, dekada company Turkiya baa maamulaya, xarada ugu weyn ee lagu tababaro ciidamada ay ka sameeyeen halkan waxay ka sameeyeen maaragtay safaaradda ugu weyn ee adduunka ay ku leeyihiin inay tahay baan u malaynayaa ay ku leeyihiin xamar. waxaan isleeyahay qorshe dheer oo maaragtay aanan sanado dhow ku ekeen bay ka leeyihiin oo qoto dheer bay ka leeyihiin. marka Soomaaliya markay isku filnaansho gaarto maxay tahay Turkiga inay ugu bedesho abaalka hadda ay u galayso? wallahi uma malaynayo Soomaaliya inay u abaalgudi karto Turkiga. uma malaynayo inay Turkiga intuu burburo Soomaaliya oo awood leh ay u gurman doonto shacabka Turkiga. macnaha waa xadaarad aad u weyn oo kumanaan sano soo jiray in ay burburto oo qabiil iyo maaragtay kala yaac u ka imaado way adag tahay. waxayna ka tirsan tahay bariga Asia iyo bariga Europe bay ka tirsan tahay. de waa wadan horumaray oo maaragtay isaga caawimaad bixiyo. waxaan isleeyahay wax xilli ay sida heerka Soomaaliya ay gaartay intay Turkiga gaarto Soomaaliya ay gargaar looga baahnaanayo inay jiri doonin baan aaminsanahay. 2011 Soomaaliya abaar ba'an baa ka jirtay. wufuud kala duwanna way timid oo madaxweynaha waddanka Turkiga hadda halka xilligaasna ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayay. ma la dhihi karaa caalamka indhihiisa Soomaaliya Turkiga ku soo jeediyay maxaad adigu booqashadaas ku qiimeyn lahayd? sidaan horeba ku soo xusay hadalkaygii waxaan isleeyahay ama cid walba oo aqli leh ay garan kartaa in xiriirka caalamiga ah iyo Soomaaliya uu Turkiga horseed u ahaa inuu bilowdo xilli ayna dadka ku dhiiranayeen dawladaha kale ku dhiiranayeen inay Soomaaliya imaadaan ka soo degayeen ayuu ka soo degay asagoo xil prime minister ka hayo dawladda Turkiga. khudbadiisina waad xasuusataa waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ahayd inuu yiraahday Soomaaliya ma aha meel naarta adduunka kamid ah. wuxuuna ku maaragtay dhaliilay wadamada islaamka ah ee indhaha ka qabsaday dhibaatooyinka Soomaaliya haystay muddada dheer. tii ayada ahayd baa keentay in dadka indhaha u furtay caalamka kale intiisa kale indhaha u furtay international community indhaha u furtay focus cusub siisay Soomaaliya. marka waxa isleeyahay credit-ka waxa iskale Turkiga iskale waxa iskale madaxweynaha hadda xilka hayo oo markaa prime minister ahaa geesinimadii uu ku dhiiraday inuu xamar ka soo dego iyadoona aan ognahay 94kii ilaa 2011kii inay jirin xiriir noocaas oo kale saad hore u sheegtay iyo siday tahayba Turkigu Soomaaliya ciidamo u tababaraa xiriyo waaweyn buu ka furay gudaha Soomaaliya. adigoo qiimeynaya xaaladda ciidan iyo taariikhda dhanka militariga ee Turkiga maxaa ku muuqanaya? wallahi waxaan isleeyahay waa caawinaad kamid caawinaad ay dawladaha kale ee dunida ugu deeqayaan Soomaaliya waqti xaadirka. macnaha in la helo ciidan wadanka amaankiisa hantado priority bay u tahay Soomaaliya hadda. marka waxaan isleeyahay waa dadaal dheeraad oo arintaas ka turjumaysa. waa gartay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya ilaa waqti intee la eg baad isleedahay adiga uu sii jiri karaa? horaan uga jawaabay arrinkaas waxaan u maleynayaa inuu waqti dheer sii jiri doono. xiriir walaalnimo ka dhaxeeya, xiriir ganacsi, xiriir istiraatiiji. waxaan isleeyahay waqti dheer bay saameyn ku yeelanaysaa. waxaad garan kartaa Turkiga hadda waa meesha ugu badan ee ardayda Soomaalida loo diro scholarship ay ka helaan. waxay baran doonaan luqadda ama soo barteenba wixii ka dambeeyay 2011kii waxaa la siiyey scholarship aad u tiro badan ba Soomaalidu la siiyey.
ciidamada badan baa lagu soo tababaray shaqaale fara badan oo dawladda lagu soo tababaray luqadda Turkigana hadda Soomaalidu waxaad u malaysaa in uu bedelay Carabiga positionkiisa oo muhiimad dheeraad u yeelan doono dadka soo tababaranaya iyo dadka ka howlgalaya iyo Turkiga xiriirka la leeyahay intaba waayay raagi xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga qayb ahaan garan qaybta ugu weyn inaad adigu abuurtay baad ii sheegtay weli ma jirtaa dad Soomaaliyeed ama dad Turkiya oo feedback ugu soo celiyay maadaama qorshiga aad bilowday oo ka bilowday ama oo ka dhashay xiriir intaan leeg طبعا ما أنا سمينين أنا publicity معناها إن شاعيو أنا كدم بيه كان أمبونيو ما أنا سمين مركز ذلك أنت بدني ما بيغانان ما وجا تركيا جسده كوي ماذا هران بان بلوجي وحنكون حسين أنت بدني إن نوجين حتى تركيا سوكوي من سوماليا مركز وحن كريدت كوسينا يا مدحيني مركز ودن كهية شيخ شريف in uu maaragtay dardargeliyay soo dhaweeyay la shaqeeyay uu asaga maaragtay base-ka ama foundation-ka ama gundhig u ahaa xiriirkaasi xukuumad kastoo imaatana way la shaqeysay dadaal bayna ka sameeyaan ilaa mid hadda jirto waana uga mahad celinaya dadkii hay-addii aad u tagtay madaxda ka ahaa inkastoo qaarkood ay sheegtay inay Soomaali ahaayeen iyaga xiriirkiini adiga iyo iyaga idin dhaxay xagee ku dambeeyay wallahi xiriir saaxiibtinimo naga dhaxaya xiriir aan aqoonsanahay meesha wax ka bilownay aan si ognahay ay naga dhaxaya inta badan ragii asaaska u ahaa Turkiga ahaa actually soo raacay xilal badan oo kala duwan bay dawladda ka hayaan waa niman maaragtay dawladooda ay aqoonsan tahay loo ogaaday doorkay ka ciyaareen maaragtay laguna abaalmariyo weeyaan way aad baad u mahadsantahay ku mahadsantahay